isoobaxan oo ka dhacay magaalada Baran ee xarunta gobolka Sanaag ayaa waxa lagu taageerayay taliyihii ciidamada gobolka Sanaag maamulka Hargeysa oo saaka ciidamo iyo gaadiid dagaal uu hogaaminayo ay ku soo biireen ciidamada difaaca dawladda Puntland sidoo kale waxa isoobaxan lagu taageerayay taliyihii ciidamada badda ee maamulka Somaliland ee xeebaha gobolka Sanaag kaas oo isna saaka ku soo biiray ciidamada difaaca dawladda Puntland isoobaxan ayaa shacabka degmada Baran waxa kala qayb galay afhayeenka madaxtooyada dawladda Puntland xildhibaano ka socday golaha wakiilada dawladda Puntland gudoomiyaha gobolka Sanaag taliyaasha ciidamada daraawiishta iyo booliska iyo mas'uuliyiin kale sidoo kale mas'uuliyiinta dawladda Puntland ee saaka ka qayb galay isoobaxan iyo ciidamada dawladda Puntland ayaa subaxnimadii hore ee saaka waxay la wareegeen guriga degmada ee maamulka Hargeysa ay ku lahaayeen degmada Baran waxaana halkaas laga dejiyay calanka maamulka Jeegaanta iyadoo la saaray calanka dawladda Puntland isoobaxa kadib ayaa waxa bulshada isugu soo baxday sharciyada degmada Baran waxa kala hadlay taliyaasha ka soo goostay maamulka Somaliland kuwaas oo ku soo biiray ciidamada dawladda Puntland gudoomiyaha gobolka Sanaag iyo xildhibaano ka socday golaha wakiilada dawladda Puntland kuwaas oo ka qayb galay isoobaxan anigu waxaan ahay taliyihii degmada la isqoray oo ciidanka ilaalada xeebaha maantana waxa weeye waad aragtaan waa ka wareegnay annaga iyo ciidankii militariga oo 117 waxa weeye isku mowqaf baanu nahay dalkayaga iyo dadkayaga waxaanu diyaar u nahay inaannu daafacno Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato Puntland ha noolaato Warsangeli ha noolaado cadowgoodu ha dhaco dalka waa la difaacanayaa haddaanu qaybsanayn maanta waxaanu nahay mid waxaanu nahay unid dalkayagaanu difaacanaynaa diintayadaanu daacad u nahay waxna waanan indhaa ka laaban doonin ciddii naga maqanna ha nagu dayato waxyaaba yaryarba iska jirjira qallooca allaha inoo toosiyo cadowgeenna allaha qabto Puntland ha guulaysato Soomaaliya ha guulaysato cadowgeennu ha dhaco waxa weeye midnimadaa wax lagu noqdaa qalbiga saalaxaa wax lagu noqdaa isku xidhnaanshaha iyo dadweynaha wax lagu noqdaa waxaan baaq u dirayaa cid kasta oo deegaanka Warsangeli soo hunguraynaysa ama dhib ku wada candhuufada inay dib u laqdo waa u soo dhimannay waa u dhimanaynaa waa difaacanaynaa ninkii dalkiisa iyo dadkiisa garanaya iyo dhibta soo martay iyo tamaanta ka jira ninka ka hor yimaada innaga maaha guray Cismaan Saalax Yaasiin Cismaan Saalax aad iyo aad baan u soo dhawaynaynaa Maxamed Cabdi waa soo dhawaynaynaa taliyaha xeebaha waxaan soo dhawaynaynaa xildhibaanada Puntland oo meesha fadhiya waxaan soo dhawaynaynaa saraakiishii hore oo odaga dhinacayga taagan dawladii noogama horeeyeen Cumar Cashuur laakiin hadda waxa moodaa bahashu inay soo caga dhiganayso diyaarad baynu saarnay inaan garanayne inay diyaaradii caga dhigatay oo Warsangeli oo dhan meel isu raacay raxiim dadweynaha faraxsan dusha iska maraya aan niyadooda iyo dareenkooda kantarooli karayn waxaan leenahay waa mahadsantihiin xafladii weynayd way noo harsanayd saaka la soo way noo harsan tahay xafladii weynayd insha Allah annaga sheegayna madax baa inoo imanaysa moodo madhantiin soo madhamidin soo isku mid halkan soo sida ciidanka isku dhex galay isugu dhex jirtaan mise wala idigu dhex jira waayahay Allahu akbar waayahay midnimo Puntland Soomaaliya waayahay hambalyo iyo salaam waxa idiga wada madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Dani oo halkaan hawlaha u imay kamid tahay waxaan bogaadinaynaa ciidamada way soo aragnay waxaan rabnaa shacabkana inaan sida gaarka ah u leedahay xafladda ugu siino idinkana way idiga mahad celinaynaa garab istaagteen waa u jeednaa dareenkiina waxaanu soo qabanay hawsha ku faraxdeen oo muddo laga shaqaynayay waxaanu qabanaynaa xaflad weyn oo ballaaran halkii aad ogeydeen
oo calankii suraa Soomaali kala goynayay calankii Puntland baa suran ciidankiina ciidan Puntland weeye waxaanu idiin soo maray magaalada u soo dhex maray inaanu idin tusno isdhexgalka guusha dhalatay iyo waxa isbeddelka muuqday xaflad baa la qabanayaa doorkiina leedihiin laakiin maanta waxa weeye calankaanu sugaynay samada ee ka xidigaha mid la siiyo maalinta Cabdullaahi Suzaayiri sidoo yahay eegna sareeyo ma nusbaabe ka nasiibka nasar insha Allah saasoo loo ballaro